الله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فرنتي إذا كواد وحيكون أدنتها كورونا فيروس أما كوفيد 19 وحن لا يهورين الله أن تلصارنو في تجنانو فرحلنو كلفوغانو سي أي نبريت يسوق دوانو إنك أوفيو وحن عمبارين يا آد نوت الماما يا إن يتهي وحلقة حماضو in wafdigii ka soo degay Djibouti ee uu hogaaminayay madaxweynuhu markay garoonka ka soo degeen aan la baarin iyo in dadweyne fara badan oo aan mudnayn inay soo baxaan sabab loo soo saaraan aanay jirin ay halka isugu soo baxeen maxaa yeelay Allah waxa uu leeyahay jalla wa ala atamuruna an-naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wardadka ma waxa amraysan samaha iyo wanaaga idinkoon nafihiina halmaamayo idinku aan samaynayn quraankiina akhriyaya war miyaydan aqli lahayn war miyaanay shalay ahayn markii madaxweynuhu 20 qof oo uu gaboose casumay oo waliba caafimaadkooda la baaray oo aayaadka quraanka dusheena ku akhriyay aadna uga xumaa in arinta la sameeyo sidee bay ugu cuntantay maanta in dadweyne inta leeg isagii wafdigii la socday aan la baarin dadka inta leeg in la isu soo saaro warmiyaynan xasuusnayn salaadii taraawiixda ahayd ee ay ahayd wadar inaynu ilaahay u hor istaagno in laynooga joojiyay coronaviruska awgi warmiyaynan xasuusnayn tahajjudkii in laynooga joojiyay coronaviruska awgi warmiyaynan xasuusnayn ciidul akbar in laynooga joojiyay coronaviruska awgeed ma bashar loo degdego in la soo dhaweeyo baa ka mudan in Allah la hor istaago aad baan uga xumahay in uu qaafto shaqadeedii gabtay aad baan uga xumahay gudda coronavirusku inay shaqadoodii gabtay guud ahaan shacabka Soomaaliland oo waa ka tacsiideynaya arinta xun ninkii gabiyaga ay carbeed wuxuu yiri la tanha an khuluqin wa taati bimithliha عار عليك إذا فعلت عديم دبيعدها الريبين أديقو الله إيمانيا أخلاق حمها كدقين أديقو الله إيمانيا عار عليك إذا فعلت عديم هدا سدا سميسو أما قف كستو سميا عيب انتاسا أغفلان إنسان كواكو عيب وحودتك كالريبا ينو سميو سدا أوقد وحن لايهي معلمين تيسكول دود الله حري ملعامده الله حري وإن سدق دقا مقدو iyo xaal iyo mushaarkoodii oo la laabay loo siiyaa maxaa yeelay iyagaba waxa meheradahoodii loo xiray dadka in la kala fogeeyo mar hadaan la kala fogeyna waa in magdhow la siiyaa oo degdeg loo siiyaa maxaa yeelay al muallimu waqifan wal mustafiidu طالبا qofka muallinka ay uu taagan yahay ardayga uu faa'iideynayana uu fadhiyaa lawla al muallimu ma kana al adiba ولا تفنن في الإعمار بنا فلتكرموه ولا تقسوا عليه فما أهانه إلا من في عقله دا قبل أصبحنا يا هدي أنا معلمين تشرين دقاتير ما تشرتين هدي أنا معلمين تشرين إنجنير ما تشرين دنودنا معمرنتين معلمين تهلا كراميو وهل أقعد ويالله عرون عدة صدقتا إيه عدة وعروتا إيه عدة نلش كعرتا إلا ما هو وحكى لما هو قار عقلك كبوكا سيدا أوجد وحن له العكتي كورونا فيروس كله هي فرها بدنيد مليون برك ديرات كوعي قلنت بلاش كاي كوب حدا دق معلمين تا مشاركة وحلوقة سيو سيدا كلا وحن كهذا يا تلماميا هيبدا قرن كوا إلا إلاليا qaranku haybad ayuu leeyahay haybadiisana waxa ugu sareeya madaxweynaha maalin kasta waa inagu ceeb dalka iyo dadkana waa ku ceeb in shacab balood iyo baloog iyo dhul doonayo oo barooranaya aynu tifiyada ka daawana xaasha waa wax aad u xun waxaan leeyahay madaxweynaha dadkaasi haday dhulka leeyihiin si degdega u sii hadii aanay waxba kugu lahayn isbariyeel oo lahaanshiyahaaga iyo inaanay waxba kugu lahayn dalka iyo dadka tus maxaa yeelay amiir almu'miniin Umar bin Khattab isagoo mambarka taagan oo maalin jibca tujinaya ayaa waxa la weydiinaya ku dhageysan mayno xaqaad go'an dheeraadka ka keentay markaasuu inankiisu kacayo lahaa aabahay waa nin dheer halkii labada go'aygi ayaan ugu daray
gu'isi madaxda waa la weydiin karaa meesha ay wax ka keeneen waana la qabsan karaa minjuhuna waa qabsan karaa si degdega dadka inooga reeb oo isaga reeb oo qaranka uga reeb xaasha ceeb bay ku tahay qaranka oo dhan iyo haybadiisa sidaasi lamida dadka waxaan leeyahay maxkamadaha taga enough is enough intaadna maqashiisaan waa nagu filan tahay maxkamadaha taga oo ashtakooda haddii aad ka baqaysaan maxkamaduhu inay idinka eexdaan hadalkii cali bin abi daalib radiyallahu canhu ayaan idiin sheegayaa oo muxuu ahaa fain lam tajid cadlan fi lmaxkamati addunya farfac amraka ilaa maxkamati alaakhira ارفع أمرك إلى محكمة الآخرة فالشهود الملائكة والقاضي أحكم الحاكمين هدي أيضا عدالتك هلين محكمة الدنيا علي وحا ويري أرنكينا أو بندقة محكمة آخرة هل كان ملائكة أيام مرخاتية كا حكم كان الله يا رديا أليس الله بأحكم الحاكمين بلا ونحن على ذلك من الشاهدين كو عبانا ينا انتا صنليهي ورهدى إذا محكمة داهن كو كالصونين محكمة إلهي أرنكينا أو بندقة مرخاتي ملائكة كا حاكمنا إلهي باكا عدالدنا هل كاسا أيتا الله تانا انتا أيان كغتغيا وحان تلماما يا وذا هذا الله soo noqnoqonaya ee Soomaaliland iyo Soomaaliya run ahaan Soomaaliya waxay dunidu u aqoonsan tahay wadan kaliya oo la aqoonsan yahay wadankaasina waxa uu ka mid yahay jaamacada Arab جامعة العربنا waxay u taqaanaa heshiisyada iyo wada hadallada iyo islaaxa inuu noqdo an yakuna waadihatan mabniyatan ala as-sidq wa adam al-khidaa' muwafiqatan ala al-qanun al-wadan aw ad-dastur kad-dastur aw ma yu'adil jaamacada carabta waxa looga yaqaanaa heshiiska iyo wada hadallada iyo islaaxa wada heshiiska waxa loo yaqaanaa wadan markuu la heshiinayo in waxa lagu wada hadlayaa wax cad oo ku dhisan run oo ka fog khiyaano oo waafaqsan qaanuunka wadanka u yaala inay yihiin maxaynu waqti loogu luminayaa innaga waxaynu u dhaarannay oo madaxdeena Djibouti tagtay u dhaarsantahay infisaal iyo gooni isu taag kuwa xamar ka yimidna waxay u dhaarsan yihiin midnimo bay u dhaarsan yihiin sida awgeed waa halbacaad lagu lisay waxa loo baahan yahay haddii wada hadallada doonay in laga miro dhaliyo in dastuurka Soomaaliland la furo كمقدشان الله فرو كدبنا وده هذا الله ضل بلابه لبدا دستور وحران هدي وده هذا الله أي سعدان وحي كدجيهين قبيجي يم محيري إن هرمر لا دونا دودي نوية حجابان كدونا سيدبان ودونا لقدونه هيسي مركه ريدوسي يدون هدان ده سوما هدرشدا دحدة أنكسوجيا درشدا ورابها دحدة أنكسوجيا هل إرمان أنتو دلي خرادي الدنهائيو لبدي الدميات شري يسوع دويري حاجيتني كدرت حاجيتني محيتني كدوكتا حاجيتني كدرتا وهالبعاد لقول لسي maxay ku nuugtaa maxayse ka nuugtaa hadii la doonayo wada hadalladaas inay miro dhalaan waa in dastuurka Soomaaliland la furaa ka xamarna la furaa kadibna ay bilaamaan marka ay miro dhalayaan waxaan ka hadlayaa oo kale ku soo dhawaanaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waxa soo baxay maalmahan dambe guul wadayaal aad iyo aad u fara badan dunida guul wadayaashii ugu badnaa أكبر تملق والنفاق في العالم قولوا وذا ياشي يقبضنا إيا نعمل ياشي يقبضنا وحي صوبح عندنا تاريخ ذا الله هيو وقتي أي مصر كترين شرين من كيلو رنشرين مماليكتا وقتي وحا كدعي مصر دول قرير كدعي وحا أول سميي ضد بدن باكو قرية بيالي ومد بدن أيا كبحضي قولوا وذيه وينا إيقابياقها إيقابيي وحير ما زلسلت مصر من كيد أريد بها لكنها رقصت من عدلكم ضربا مصر ومي قريرين ودولك ومو قريرين إنو دبات دادك وقيستو لكن مدحدا كتالينا يسا مصر درتيد عدالة ديدا أيو دولكو صعب يدربان تميي ما أنت سيلا ميدا ضد بدن أيا ما أنت صعب كصعب لميدا تميي وامحي ما أنت قوش أينو كسوهيني جبوتي وامحي وحا أينو هالي مدح كرا هالليسا سليمان با هاللي وسير كلا هاللي سفير با هاللي بلدبو دقيسو هذا الكودا إسوافتش أبدا يسوي من ما هذا الكود سيدا وجد وحن لا ما أنت الصومالي لام باوبا هنين لا شريو ما أنت الصومالي لام باوبا هنين دحدة هذا طرحان تلاقى صاروا ما أنت الصومالي لام باوبا هنين لا دحمر تبليغ سياسة لقصة مايو ما أنت ضدك أيا أوبا هنين لا مدايو وحن كلو كهذا يا عنشور تودن كضدك لقى قاضيو
ee ay muwaadiniintu bixinayaan meel kastoo ay Somaliland ka joogaan waxay doonayaan inay helaan caafimaad bilaasha waxay doonayaan inay helaan waxbarasho bilaasha waxay doonayaan inay helaan leyd bilaasha waxay doonayaan inay helaan kudaafada oo laga qaada sanitationka la hagaajiya waxay doonayaan in loo abuuro rajo cusub iyo yiidadiilo iyo hadaf ay hiigsadaan midna ma hayaan sidaas la mida canshuurta la qaado iyo dhaqaalaha dibadda inaga soo gala oo la isu geeyo oo laga jaro mushaarka shaqaalaha iyo kharashaadka macquulka wixii ka soo hara wadanku wuxuu u baahan yahay si isleeg oo equal share in loo qaybiyo maxaa yeelay waa in lagu qaybiyaa badka dhulku siduu u kala weyn yahay tirada dadku siday u kala badan tahay iyo baahiduhu say u kala horeeyaan macquul noqon mayso xero keliya iyo xaafad keliya xoolaha dadka laga guro oo dhan in lagu xereeyo kuwa kanaan la yidhaahdo xasarada joojiya xaq bay kuwan u heleen socon mayso hadduu waddanku in badan sidaa ku socday ku sii socon maayo dadku way baraarugeen madaxda Afrika guud ahaanba waxa ka hor yimaada cadaadiska ay sameeyaan uma baahna dalkani cadaadis caburin aga juglayn iyo caqliga dadka oo la caado maxaa yeelay waxa ka dhashay in la yiraahdo cadaadis kadibna wuxuu xidhootaa in la yiraahdo adeegla inantaasu waa taa canshuurta bixinaysa caafimaad bilaasha weyday ee waxbarasho weyday ee leyd weyday ee biyo weyday adeegla ayaa la yiraahdaa way isxidhootaan markay isguursadaanna in curada bay ku dhashaan oo la yiraahdo maxay gadood shacab waxaan leeyahay hadda shukaansiga wuu socdaa cadaadis iyo adeegla way socodxodanayaan maalin walba waynu aragnaa baaqa shacabka xidhxodashada kamida si aanu gadood shacab u dhicin waa in la joojiyaa cadaadiska caburinta aga juglaynta iyo caqliga dadka oo la caayayo canshuurta dalka laga qaadana si siman oo isleeg iyo baahiyuhu say u kala mudan yihiin loo qaybiyaa waxaan ugu baaqayaa dhammaan kasta meel kastoo ay joogaan gudoomiyeyaasha xisbiga wadani gobol kasta ay ku sugan yihiin bisha soo socota 20keeda inaan u fidiyay gogol aan dhigay magaalada Cergaabo oo aan ku casuumayo anigoo uga dan leh koow inay arkaan dhulkii awoowayaashood taariikhdana wax ka ogaadaan isla markaana ay ogaadaan awoowayaashood taariikhday lahaayeen iyo dalka siday uga talin jireen haddii ay taladu dalku ku soo ururto madaxweyne kasta markuu kursiga ku fadhiisto Somaliland inuu yiraahdo tiisay tayday tagaysaa tu kalena socon mayso xisbiga wadani wuxuu u taagan yahay inuu taabeeniyo tamar ma waayin taagna ma waayin dalka ayuu u turayaa una tanaasilayaa laakiin haddii taa la joojin waayo mar dambe xisbiga wadani ma tanaasulayo wuxuuna u taagan yahay in sharciga la ilaaliyo lagu soo dabaalo sidaas la mid ah dalku waxa u baahan yahay doorasho waqtigeeda ku dhacdo aan maalin lagu darin maadaama aanay jirin wax national disaster wax aafaad dabiici oo keeni kara in la kordhiyo dalku doorasho u baahan yahay aan muddo kordhin lahayn wuxuu u baahan yahay golaha deegaanka baarlamaanka iyo guurtida oo la kala diro maalinta waqtigoodii u dhamaaday lagu kala diro hal maalin in loogu daro wadanku uma baahna maxaa yeelay suuroobi mayso qof kasta oo la doortaa inuu yiraahdo kursiga ka kici maayo ilaa kii ibedelaya uu yimaado muftaaxina isaga uu gacanta ku haysto dadku taa u dulqaadan maayaan mar dambena yeeli maayaan waxaan leeyahay sida ugu dhaqsaha badan waa in loo diyaar garooba in wadanka doorasho ay ka dhacdo la dardargeliyaa barnaamijka doorashada la kala dira golayaasha waqtigoodii uu dhamaaday ee raagay ee aan dalka iyo dadka waxba ugu maqnayn sidaas la mid ah shacabku ma xamili karo one day oo ay doorashadu dib u dhacdo xisbiga wadanina ma aqbali karo doorasho lagu daro maalmo ama dib u dhacda waa in si degdeg ah dalka doorasho looga qabtaa qofka madaxweynaha waxa la doortay 5 sano muddo xuleedkiisuna waa 5 sano hal maalin oo dheeraad oo la doortay ma jirto kuwa kooban leeyahay madaxweyne muddadaada isku filaysi bisinka u qabo ula diyaar galay dalku sidoo doorasho degdeg u gali lahaa waa hadii dalkan la doonayo inuu sii jiro iyo inuu sii socdo iyo inuu dunida la jaan qaado guud ahaan gobolka Sanaa waxaan ugu baaqayaa nabad qoriga qadhiga qalinka qaata isku duubnaada khilaafaadka jira ee dhinac walba ka jira wada hadal darisnimo muslimnimo xididnimo gacalnimo ku dhameeya danteenu waxay ku jirtaa inaynu midaysnaano isku duubnaano qalinka qaadano qoriga dhigno caalamka la jaan qaadno goboladii aynu ka horeyn jirnay ee ina dhaafay aynu dib u dhaafno